xaaladda galmudug ayaa sii cakirmaysa kadib markii ay fashilmeen wadahadalla ay wadeen odayaasha magaalada Guraceel oo ay ku doonayeen in kooxda ahlu sunna la baxday si nabad uga baxda magaalada Guraceel oo aan lagu dul dagaalamin dadka maatida ah ee degan magaaladaas. kooxdan ayaa la sheegay inay ku gacan saartay dhowr kulan oo ay odayaasha deegaanku la yeesheen si gaar ah Sheekh Maxamed Shaakir oo hogaaminaya gulufka ay kooxdu ku qabsatay magaalada Guraceel ayaa la sheegay inuu diiday inuu magaalada ka saaro ciidankiisa. dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay galmudug ayaa la xaqiijiyay inay daabushay ciidankii ugu xoogganaa iyadoo geysay jihooyinka looga baxo ama laga soo galo magaalada Guraceel. kooxda la baxday ahlu sunna hadda ciidan ahaan waa hareeraysan tahay. cutubyo ka mid ah guutada 27aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa shalay tagay degmada Matabaan iyo hareeraheeda waxaana loogu talagalay inay toos u aadaan magaalada Guraceel haddii laga fursan waayo dagaal. ciidan kale oo xoog leh ayaa dhanka Dhuusamareeb xigta ka jooga magaalada halka ciidan kale la geeyay tuulo si xagal ah ugu aadan jihada Balambal. saddexdaas jiho ayay galmudug geysay ciidanka loogu talagalay inay dib u qabsadaan magaalada muhiimka ah ee Guraceel. ciidanka galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ah ayaa la xaqiijiyay inay sugayaan go'aanka ugu dambeeya ee hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaasoo la sheegay inuu ku jiro la tashiyadii ugu dambeeyay xiisadan. odayaal deegaanka ah oo isxilqaamay ayaa ku fashilmay inay xal keenaan gaar ahaan in magaalada dagaal laga badbaadiyo oo ay ka baxdo kooxda ku soo duushay ee la baxday ahlu sunna. shacab badan ayaa la soo wariyay inay ka barakaceen magaalada Guraceel kuwaas oo ka baxsanaya dhibaatada ka soo gaari karta dagaalada laga cabsida qabo. in magaaladu dagaal ka badbaado hadda waxay ku xiran tahay kooxda ahlu sunna sababtoo ah iyaga ayaa ku soo duulay magaalo nabad ah oo ay dawladda ka jirta ay leeyihiin dadka deegaanku. dooda ugu weyn ee reer galmudug gaar ahaan dadka waxgaradka ah waa inay kooxdu si nabada uga baxdo magaalada oo ay duurkeeda ku laabato kadibna lagala hadlo wixii ay tabasho ka qabaan maamulka galmudug. laakiin ahlu sunna taas uma aragto xal ay wax ku goosan karta ay leeyihiin dadka ku dhowdhow. kooxdan oo siyaasad ahaan lagu wareeray ujeedkooda fog ayaa dhowr jeer sidan oo kale deegaanka colaad siyaasadeed gelisay lagumana guulaysan inay ku qancaan codka siyaasiga ah ee ku soo aaday. shacabka ka barakacay magaalada Guraceel waxay u baahan yihiin in degdeg gurmado la gaaro. sidoo kale waxgaradka magaalada waxaa hortaala inaanay ka quusan in dagaal laga badbaadiyo magaaladan oo horumarkeedu si xawliya ku socday oo kooxdan magaalada difaaca ciidanka ka dhigata lagu qanciyo inay bannaanka u baxaan. galmudug inkastoo ay hadda 3 jiho ciidan ka dhigtay kooxda haddana waxaa hortaala inay fursad kala siiso dadka magaalada Guraceel oo baahi weyn u qaba inaan dushooda lagu diririn. kooxdan la baxday ahlu sunna oo qoonda siyaasiya raadinaysa ayaa sidoo kale waxaa hadda si weyn ugu dhex jira oo ka dhex kalluumaysanaya siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda deegaanka oo raadinaya kuraas heer federaal ah kuwaas oo raba in Axmed Qoorqoor lagu qasbo in lagu heshiiyo sida loo qaybinayo kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. laakiin Qoorqoor waxaa la sheegay inuu si weyn uga biyadiiday inuu cid bannaanka joogta iyo koox hubaysan midna kala doodo sida loo maamulayo galmudug iyo doorashada heer federaal. maxay kula tahay adiga?